Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso kusoo dhawaad Taleex Media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto barnaamijyadan halkan ka soo dayno. Haddii aad horey inoola joogtayna fiidiyowgan sii share garay oo la wadaag asxaabtaada. kusoo dhawaaw sheekadii waa sugay iyo warsame socdaalkii 30 maalmood qaybteedii 16aad. qaybta 15aad sheekada waxay inoo joogtay afafka qalaad iyo maxaa erigta ii dhiibtay anaa macallimo rabadad loo furo iskuulaade. qaybta 16aad waxay ku bilaabmaysaa markii la qadeeyay ayaa nin dhalinyaro ah oo barnaamijkii raadiyuhu talo ku dhaliyay oo si degan labadii oday su'aal ugu jeediyay wuxuuna yiri waa suga iyo warsamow waxaad nooga warantaan ra'yiga aad ka qabtaan qoridda afka Soomaaliga iyo sida oo warkeedu idin soo gaaray. waxaa jawaabtii qaatay warsamo oo yiri sida runta ah reer miyiga waa looga wanaagsan yahay waxbarashada maxaa yeelay waa dad aan meel degnayn oo mar walba raadiya daaq iyo biyo. laakiin waxaan kuu sheegayaa in maskaxda reer miyiga sida tiin u qaybsanayn oo aan aaminsanahay inuu af Soomaaliga yahay lama huraan cawska jiilaal sideedana waa ceeb aan laga waaqsan ummad gob ah oo haddana ku dhaqmaysa waxyaalo afka ka mid yahay oo ay ka dhaxashay shisheeyihii gumaysan jiray. run ahaantii sababaha dhibaatooyinka dhaliyay waxay naga soo galeen xagga reer magaalka mana aha kuwa loo garaabi karo waxaana sideedaba ay Soomaalida ku mahmahdaa amaana kugu raagtay inaad leedahay ayaa la moodaa. warsame oo hadalkiisii sii wata ayaa yiri haddii aan walaalow hadalka runtiisa kuu sheego ama kuu soo koobo waxa afafka iyo dhaqamada shisheeyaha ku faanaya oo ay la tahay inay ka maarmi karin waa reer magaalka. sida aad ogsoon tihiin reer miyigu waxay aaminsan yihiin ummadnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxayna mar walba garab taagan yihiin qofkii rumaysan. amuurtaasna waxaa horay tusaalooyin ugu bixiyay xaaji aadan axmed afqalooc oo yiri nina kuma aflixo hadal dad kale u akhriyeen aayaha dhulkeygiyo danta lagu iloobaye kuwii uurka kula jiifsaday arag culowdaani haddaan dhaqanka laysaga ekayn laysma aamine waa kala ajnabi laba kastoo ehel wadaagnaaye. 4 qof oo walaalaha hadduu ruuxba beled aado mid weliba akhlaaq gooniyo kala imaadaaye arrin kuma heshiinayaani way kala irdoobaane. waa sugay oo aad ula dhacsan sida warsamo ugu jawaabay su'aashii reer magaalka ayaa markaa intuu hadalkii qaatay si jees ah u yiri anigoo hubo inuusan warsame wax dhibin waxna dhaafin waxaan hadal jecel ugu laabanayaa inay idinka ahaaye dad run mooday waxyaalihii shisheeyuhu muraadkiisii ku qoonsanayay. tan labaad waa isla idinkii kuwa haddeerna runtii u soo laabtay oo gartay in danahooda laga duwaayay si aayahoodii dambe ay u xumaadaan. waxaa kaloo aan idin xusuusinayaa inaan horay u ogeyn inaad dhalanteedka ka tegi doontaan maxaa yeelay waxay Soomaalida ku mahmahdaa beentu way ku waraabisaa masaragaato. odaygii reer magaalka ahaa ayaa inta cimaamadiisii jilbaha ku xirtay asagoo shaaribka far iyo sul ku suluugaya yiri jawaabtii warsame bixiyay hal baan ka iri hadalka waa suga raaciyeyna hal baan ka iri tan hore hal baan ka iriyo waxaa hadalka warsame ka muuqatay inay reer miyigu mabda ahaan waafaqsan yihiin qoridda afka Soomaaliga laakiin aysan firaaqa u heli karin waxbarashada. kaloo warsame si cadaan ah noogu muujiyay inay reer miyigu aad uga xumaayeen ku dhaqanka afafka shisheeyaha. haddaba waxaan idin leeyahay haddii aadan baran sida loo qoro iyo sida loo akhriyo wuxuu afku ka dhigan yahay biyo ubadda kaaga buuxa oo aad ka ooman tahay isticmaalkiisuna wuxuu ku kooban yahay labada qof oo ismaqlaya oo keliya. haddaad sidaas ku adkaysataan waxaad ku sifoobaysaan abwaano aan ku camal falayn murtida ay afkooda ka sheegayaan. bal waxaad xasuusataan mahmahdii qaayaha lahayd isla amuurtaana ku saabsaneed oo ahayd dhibkaad dhowrataa dhashaaduu sugaa. hadalkii waa sugana hal baan ka iriyo waxaan marka hore waa sugo kuu qirayaa inay reer magaalku ugu horreeyeen Soomaalida wax ka baratay shisheeyaha laakiin faa'iidooyinka aan ku gaarnay waxaa ka mid ahaa inaan muddo kadib kala ogaanay waxyaalaha waxtarka u leh horumarinta nolosheena iyo kuwa aan u lahayn. taas waxaan ku gaarnay waxbarashada aqooneed. waxaa kaloo ay noo horseeday inaan hubsannay inaan cilmiga la kala lahayn af kasta ku bare. hadalkaasu si weyn ayuu odayaashii u saameeyay waxaana isagoo cod jilicsan ku hadlay jawaab gaaban ka bixiyay warsame oo yiri
intaas waxaa noogu soo dhammaaday qaybtii 16aad ee sheekadii Waasuge ee Warsame socdaalkii 30 maalmood.